si looga dhabeeyo qorshaha isla xisaabtanka iyo dowlad wanaagga ay wado xukuumadda ayaa waxa uu maanta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre kulamo isla xisaabtan iyo isxog waraysi ah la yeeshay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa gaargaar ula kulmaya wasiirada waxauna ka xog wareysanayay qorshaha wasaaradiisa, caqabadaha uu kala kulmay intuu xilka hayay, sida uu diyaariyay hanaan looga gudbo caqabadahaasi iyo qorshe hawleedka wasaaradda ee 100 maalin ee ugu horeysa taa oo la waafajinayo qorshaha dawladda ee nabad iyo nolol. wasiirada uu maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo lagu bilaabay qorshahan ayaa dhamaantood soo gudbiyay qorshe aad u wanaagsan oo dalkan horumarkiisa lafdhabar u noqon doona. wuxuuna ra'iisul wasaare Khayre kula dardaarmay inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara maamul xumo iyo musuqmaasuq. haddii alla idmo qorshaha ra'iisul wasaaraha uu kula kulmayo golihiisa wasiirada ayaa sii socon doona taa oo sare u qaadaysa shaqada xukuumadda iyo kalsoonida shacabka, maadaama halkudhigga xukuumadda uu yahay isla xisaabtan ku dhisan dowlad wanaag iyo abuurista kalsoonida shacabka iyo dowladda u dhaxaysa. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.